السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabi meel walba joogtiin waa aniga Dr. Saddam Hussein. Maanta waxaan idin wadaa waxyaalaha ku keeni kara period-kaaga ama ku keeni kara in uu period-kaaga laba mar aad isku aragtid bishii maxaa waaye waxyaalahan ka qayb qaadan kara inaad period-kaaga laba mar aad bishii aad isku aragtid. waxyaalahani waa waxyaalaha kula xiriiro oo maaragtay waxyaalaha qaarkood waxay noqonayaan shayashani inay maaragtay daily life-kaaga ku xiriiraan oo la socdaan. waxyaalaha kale waxay noqonayaan inaad maaragtay jir ahaan oo adiga caafimaadkaaga uu taameen ama wax meel ay ka qaldan tahay. marka hadaba soo dhawaada meel walba joogtiin haylowina inaad followerka aad noo saartiin. marka haddaan u guda galo shayga koowaad waxa loo yaqaano PID-ga ama pelvic inflammatory disease-ka. pelvic inflammatory disease-ka waxa waaye wax xanuun infection ama caabuq ku dhaca dhanka maaragtay tuubooyinkaaga iyo ogxaansidahaada iyo maaragtay minkaaga ku dhaca waaye. infection kan sidiis wuxuu ka soo bilowdaa waa qofkii haduu ku dhaco cudurka galmada oo kor u kaco maaragtay tuubooyinkii aado ilaa iyo minka ilaa iyo ogxaansidaha aado waay. marka infection kan haddaad isku aragtid calaamadaha kuwaad uu ku keeni karo ama calaamada kuwaad hadii aad infection kan leedahay waxa waaye caadadii baa ka qaldamaysa, caadadii baa irregular ka noqonaysa. bishii waa inaad isku aragtid caadadii laba mar ama saddex mar inaad isku aragtid waay. dumarka qaarkood hadii marka ay ka qabaystaan marka labaad ay isku arkayaan bishii. shayga kale oo maaragtay la xiriiro pelvic inflammatory disease kan ama caabuqan la xiriiro waxa waaye waxa loo yaqaano in maaragtay hoostaasi hoosa ayaa ku xanuunaysa. waxyaalaha kale uu ku keeni karo waxa waaye wasaq ama dhacaan oo maaragtay wasaq ahaan ah in aad hoosti aad ku aragtid. shayga labaad oo ku keeni karo caadadaada inay laba mar ay kugu dhacdo bishii waxa waaye waxa loo yaqaano menopause-ka. menopause-ka waxa waaye sidiisba hadii aad maaragtay gabadhii waqtigii u soo dhawaatay caadada ay ka goysay. menopause-ka sidiisba markii gabdhaha ama gabadha dumarka qofka dumarka lagu sheegayo waxa waaye markii ay gaarto 12 bilood xariira hadda dhiig caada aad isku arkin anna maaragtay waqtigaaga 38 39 40 aad lugta la gashay waxaad gashay waqtigii menopause-ka. waa inaad taa ogaatid 40ka menopause-ka sidiis wuxuu u dhaxeeyaa 40ka ilaa 50ka gabadha markay gaarto 50 sano 40 sano ilaa 50 sano markay gaarto ayuu maaragtay menopause-ku bilaabanaa. hadda waxyaalaha wadamo qaarkood oo casriga ah waxay sheegaan gabadh hadii maaragtay 35 sano ay gaarto waxaad dhici kartaa in menopause-ku uu bilowdo oo maaragtay hadii nolosha iyo lifestyle-ka ku jirta ayaa u keenaya inuu menopause-ku u bilowdo. shayga kale waxa waaye shayga saddexaad caadadaada loo waqti kugu ridaaya inaad bishii aad isku aragtid ayaa ah thyroid problem-ka. thyroid problem-ku waa qanjirka thyroid-ka oo dhuunta ku yaala. waxa uu ku keenayaa inaad maaragtay aad isku aragtid cudurro maaragtay ciladooyin la jiro dhanka hormoonadaada inuu qaldo maadaama qanjirkan sida maaragtay uu control jirkaada oo idil shaqaynta jirka oo idil ka socotana uu control uu ku hayo. marka qanjirkan haduu ka qaldamo waxa kula soo ziyaadahay in dhibaato dhanka ay ka soo gaarto maaragtay ogxaansidahaadina hormoonadii uu soo daaynayo oo idil ay wada qaldama. kale waxa loo yaqaano uterine fibroid-ka. burada oo minka ka soo baxdo ama burooyinka minka ka soo baxa loo yaqaano fibroids-ka waxay ay keenaan maaragtay in ay caadadaada laba mar ama saddex mar ka badan ay kugu dhacdo bishii. caada qalqalkani kula soo ziyaadayo oo bishii laba mar aad isku arkaysid waxa ugu weyn ku keeno hadii aad qof dumar oo ilmo dhala waqtiga ilmo dhalistina aad ku jirtid waxa waaye uterine fibroids-ka. uterine fibroids-ka waa shay maaragtay oo dumarka badi hadda laga helo oo maaragtay burooyinkani waa burooyin hadda dumarka laga helo. badidina waxay keenaan badi ahaan waxay keenaan maaragtay in ay gabadhii ay ka qalqasho caadadii waana gabadhii mar walba inuu dhiig uu ka socdo. hatta caada qalqal ma ahan gabadhii waxa dhici karta in caadadii oo idil ay ka wada socdo dhiig mar walba uu ka socdo oo maaragtay dhiigan istaag lahayn. hadii maaragtay aad ku jirtid waqtigii dhalmada aad maaragtay child bearing age-ka wax loo yaqaano oo wax xilliga gabadha ay dhalaysay oo maaragtay ku jirto uur qaadista ay maaragtay u badan tahay haddana maaragtay caadadeeda laba mar ay isku arkaysa. shayga koowaad ka walwashid waxa waaye uterine fibroid-ka. arrimaha kale oo maaragtay ku keenaya caadadaada inay laba maalmood ay bishii laba mar ay kugu dhacdo waxa waaye waxa loo yaqaano miscarriage-ka. miscarriage-ka waxa waaye dilinka sidiisana waxa waaye waxyaalaha oo ku keeni karo maaragtay adigoo maaragtay ogeyn oo dhiig ayaa iska furmaya bishii dhiig oo 4 maalmood ama 5 maalmood ka socdo adigana uur aad isku ogeyn hadaba ka walwal in aad uur aad qaaday maaragtay uu ka dilmay. taasi waa inaad ogaatid markii horena bishii dhamaadkeedna ay caadadii kugu dhacday bishan gudaheedna oo maaragtay 4 maalmood ka bacdi dhiig ka badan dhiig socdano hadaa aad isku aragtid waxaad ka walwashaa in aad miscarriage kugu dhacay ama dilin kugu dhacay. dilinka
barnaamij kale ayaa uga hadlay maaragtay qaybihiisa iyo waxyaalihiisa oo idil marka ka bogasho wacan labada shay ugu dambaysa oo caadadaada ku keenaysa in caadada la xiriiro oo laba waqti inaad isku aragtid bishii ayaa waxa loo yaqaano birth control pills-ka ama maaragtay shayga loo yaqaano waxa maaragtay family planning loo yaqaana family planning sidiisba ودي بدنيا هي هدية استعمال شيء وحاجة وكوكين كراء هذا قلقل إنه كوكينه وقتها عاد معركتي داوين كاني أتستاجسيد أما هدية قادني هيسيد إن هذا اسكو أركتيد عادي بشي لبمر إن هذا اسكو أركتيد أيالا جيابا مركب family planning ka noocyaal badan buu leeyahay waan ka soo hadli doonaa asagana noocyadiisa side effect oo mid walba uu leeyahay ama dhibaatooyinka mid walba uu leeyahay taasina waad igu xirnaado waad arki doontiin channelka aad ka dhex arki doontiin inta maaragtay uu noocyada uu kala yahay marka arinta kale waxa waaye oo ku keenaysa in aad maaragtay dhiigaaga uu qalqal ku dhaco waxa waaye cayilka badan cayilka sidiisna waxa waaye dhibaatooyin badan buu ka keenayaa jir ahaan in nafsad ahaanba maaragtay iyo wadna ahaan xibnahaaga meel uu taawanaynin ma lahan pressure buu kugu ridayaa cayilka haduu ka bato waxa kale uu ku keeni karaa sokor buu kugu ridi karaa waxa kale uu ku keeni karaa maaragtay caado qalqal inuu kugu rido jirkaada oo idil meel walba ayuu qaldayaa cayilka marka waxa aad ku dadaalaysid waxa waaye todobadan shay aan ku sheegay iska ilaali haddaad isku aragtay waana ka digtoono in aad maaragtay ama hadii aad dhibaatooyinkani infection uu jiro oo pelvic inflammatory disease ka loo yaqaan uu jiro hadii uu jiro maaragtay problem oo dhanka kaaga imaanayo waxa loo yaqaano maaragtay obesity-ga waa inaad miisaanka aad iska ridid hadii uu maaragtay problem oo dhanka kale kaaga imaanayo oo thyroid-ka waa inaad dhakhtarkaaga la xiriirtid inta kala aan soo sheegay oo idil waa in aad mar walba dhakhtarkaaga ku xiriirsanaatid oo maaragtay check up lagu sameeyo aan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanidka barnaamijka hadii aad ka heshay videoga hanaga ilowin like-ga inaad saartid aadna share-ka u dhahdid sida ay dadka kalena ugu faa'iideystaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi